kulanta waxaan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka wacyi TV oo maalin walba imika kala daawataan qodobada aad ku maqli doontaan warkeena waxa kamid ah dowladda federaalka Soomaaliya oo war ka soo saartay hadalkii safiirka Mareykanka ee Kenya ciidamada ka tirsan kuwa dowladda oo doon kula degtay xeebta Cadale guddiga doorashada Galmudug ee dowladdu magacawday oo gaaray Dhuusamareeb shirweynaha Ruushka iyo Afrika oo maanta ka furmay magaalada dalxiiska ee Sochi taas waa qodobada maanta ku daawan doontaan warkeena imika ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan qodobka ugu horeeya warkeena dowladda federaalka ayaa war ka soo saartay hadalkii safiirka Mareykanka ee Kenya dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay hadalkii ka soo yeeray safiirka Mareykanka ee Kenya Kelly Carter oo ahaa in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka dalbaday in dacwadda badda lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda caalamiga ICJ safiirka Soomaaliya ee Kenya aan iraahday Maxamed Axmed Nuur Tarsan ayaa sheegay inuu san jirin kulan dhexmaray safiirka iyo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed waxaan ku wargelinaynaa inuu san dhicin kulan dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo safiirka Mareykanka ee Kenya xilligii uu booqashada ku yimid magaalada Muqdisho oo ahayd dhowr bilood ka hor ayuu yiri safiir Tarsan waxa uu intaas ku daray in wargeyska The Daily Nation ee daabacay warbixintan looga baahan yahay inuu iska hubiyo warbixinada uu faafinayo Kelly Carter oo wareysi siiyay wargeyska ugu afkareer Kenyada ee The Daily Nation ayaa waxa laga weydiiyay halka dowladda Mareykanka ay ka taagan tahay arinta badda ee isku hayaan labada dal arintan waxaan si dhaqso ah wax looga qabtaa waxaan kala shaqeynay madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta in miiska wada hadalka u yimaadaan aniguna waxaan tagay magaalada Muqdisho si aan madaxweyne Farmaajo uga hadlo arintan waxaan ku yiri isaga bax kiiska maxkamadda ay yiri safiirka Mareykanka u fadhiya Kenya Kelly ayaa sheegay in caqabada ugu weyn ee horta la madaxda Kenya iyo Soomaaliya ay tahay sidii looga adkaan lahaa argagixisada shabaab taasna ay tahay qaabka kaliya ee looga faa'iideysan karo kheyraadka badda safiirka oo aan sheegin xilliga uu tagay Muqdisho ayaa sheegay in madaxweynaha Kenya uu wado dadaalo lagu xalinayo arintan ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo doon kula degtay xeebta Cadale warar laga helay xeebta degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay sheegayeen halkaas ay doon kula degtay askar ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ciidankii la socday doonta ku degtay xeebta degmada Cadale ayaa waxa la xaqiijiyay in laga soo badbaadiyay badda kadib markii ay heleen gurmad degdeg ah doontan ayaa waxa la tilmaamay in si gaar ah ugu degtay meel 60 kiiloomitir u jirta xeebta degmada Cadale isla markaana la soo badbaadiyay dhammaan ciidanka saarna ciidanka hawlgalka Atlanta ee la dagaalanka burcadbadeed ee midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa sheegay in soo badbaadiyeen ciidamadii dowladda ee doonta kula qalibantay xeebta Cadale war qoraal oo ka soo baxay midowga Yurub ayaa waxa lagu shaaciyay in gurmad degdeg ah ay u sameeyeen ciidamada isla markaana ay badda ka soo saareen iyagoo la soo bandhigay sawirada ciidamada si kastaba dhawaan ay ahayd markii ciidamada ka tirsan guutada 14 Oktoobar ee ciidanka xoogga dalka ay doon kula degtay xeebta magaalada Marka xilli ay ku jireen safar dhanka badda ah yeeshay inta badan la soo badbaaday halka saddex kale wali lagu laayahay guddiga doorashada Galmudug ee dowladdu magacawday oo gaaray Dhuusamareeb guddiga doorashada Galmudug ay dhawaan magacawday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka Soomaaliya ayaa goor dhow gaaray magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug garoonka diyaaradaha ayaa waxa ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan dowladda ee Dhuusamareeb ku sugan waxaana loo galbiyay hoog oo halkaas ka degan yahay wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee Cabdi Maxamed Sibriye ila xogaal oo ku sugan Dhuusamareeb ayaa sheegay in ciidamada ka tirsan dowladda ay la sheegay in la geeyay wadada isku xirta garoonka diyaaradaha iyo magaalada kuwaas oo si weyn amniga magaalada u adkeeyay guddiga doorashada Galmudug oo magacawday dowladda ayaa waxa la tilmaamay in maalmaha soo socda ay magaalada Dhuusamareeb ka bilaabi doonaan qabanqaabada doorashada dowlad goboleedka Galmudug dhinaca kale Dhuusamareeb waxa ku sugan guddiga doorashada iyo xalinta khilaafaadka Galmudug oo magacaabay Sheekh Maxamed Shaakir oo ah madaxa xukuumadda Galmudug lamana oga talaabada ay qaadi doonto Ahlu Sunna maanta Arbacada lagu wadaa in magaalada xeebeedka soo jeeya koonfurta Ruushka uu ka furmay magaalada dhaqaalaha Afrika iyo Ruushka iyadoo ay ka qayb galayaan hogaamiyayaal konton gaar iyo Afrikaan ah
shirweynaha oo socon doona inta u dhaxaysa 23 ilaa 24 bishan aynu ku guda jirno ayaa madaxda dalalka ku bahoobay madashan ururka midowga Afrika maalgashadayaasha iyo khubaradu waxay kaga arisan doonaan mustaqbalka xiriirka labada dhinac dagaalka ka dhanka argagixisada kor u qaadida iskaashiga dhinacyada amniga socdaalka dhisida kaabayaasha dhaqaalaha iyo yareynta saboolnimada shirkan ayaa waxaa dowladda Soomaaliya uga qayb galay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ganacii dambe shalay ka degay Sochi ee dalka Ruushka shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay hogaamiyaasha dalalka Afrika iyo Ruushka dhaqaaleyahano caalami ah shirkado waaweyn oo dhanka maalgashiga iyo golaha guud ee midowga Afrika waxaana dalkeena u yahay fursad ay ku siiyaan baqaadno qorshayaasha dibadhiska kaabayaasha dhaqaalaha iyo soo bandhigida fursadaha maalgashi ee ka jira dalkeena intaas ayaan ku soo afmeerinaa warkeed maalin walba imika oo kala aad ka daawataan Wacyi TV tan iyo koonta dambe nabadiino Wacyi TV waxa uu taagan yahay soo bandhigida wajiga wanaagsan ee dalkeena iyadoo laga fogaanayo wax kasta oo sumcadil u keenayo wadankeena. Wacyi TV waxa ay idin duubayaan xayeysiimaha ku saabsan goobaha caafimaadka, waxbarashada, ganacsiga iyo dhammaan hawlaha aad sida gaarka ugu baahan tahay. muwaadin ku xirnaa muuqaalada uu soo gudbinayo Wacyi TV si aad u hesho wax badan oo ka dahsoon. Wacyi TV waa TV ugu adeega bulshada si furan waana caawiyaha dhalinyarada hal-abuurka leh ee jecel inay helaan cid ka caawisa meesha ay ku soo bandhigi lahaayeen xirfadahooda gaarka ah. Wacyi TV waxa uu ku suuragelinayaa inaad si toos ah kala socoto dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee caalamka. TV-gu gordo Wacyi TV meebha kiin gudbiyay barnaamijyada xiis geliyo oo inay iska jaraan barnaamijyo koran qaado diinta caafimaadka walbarashada iyo aano ku sii tir badan ma doonaysaa inaad heshid cid ka caawisa muuqaalo aad u heer sareeya oo soo jiidasho leh fadlan la soo xiriir Wacyi TV